wafdigan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka Tawfiiq isagoo ka hadlaya sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedadaasi. wasiir Dhabancad ayaa ugu baaqay maleeshiyaadkan labada beelood in ay xiisadan dejiyaan, sidoo kalena looga baahan yahay odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac in ay ka qayb qaataan sidii xal looga gaari lahaa. sida halkan laga xusay halkan waxa ka dhacday colaad ay ku dagaalameen dad walaalo ah oo darisa, dad badanna ay halkaas khasaare ka soo gaadhay oo dhimasho iyo dhaawacba leh. intii dhimatay ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay u naxariisto, intii dhaawacna ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay u boogadhayo. dadkaas dad walaalo ah bay ahaayeen, dad daris ay ahaayeen, dad shacab ah oo ka kala tirsan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ayay ahaayeen. haddana darisa oo dhinaca isku haya ehela wax badan ka dhaxeeyaan. halkan maanta waxaanu isugu nimid coqaasha iyo waxgaradka iyo saraakiisha iyo maamulka intaba inaanu ka hadalno dirana baaq ah nabadeyn iyo inaanu diyaar u nahay haddaanu nahay Puntland in arrintaas lagu soo dabaalo nabad. qaar ka mid ah waxgaradka uu wasiirku la kulmay ayaa iyaguna sheegay in ay raali ka yihiin wax kasta oo dawladdu ay kula taliso. waxaa maanta meeshaan lagu yimid wasiirka arrimaha gudaha Puntland wuxuuna haddii ilaahay ku idmahayo noo keenay baaq nabadeed. annaguna haddaan nahay odayaashii deegaanka waa la qaadanay, waana soo dhaweynaynaa, waana uga mahad celinaynaa. haddii ilaahay idmahayo sidaa loo shaqayn karnayo sidaan hadde nabadgelyo ooday karana hadda diyaar baan u nahay. sidaa weeye dhammaan codkii Puntland annaguna waa ka qaadanay, waana soo dhaweynaynaa. dawlad maamulkayagii oo noo keenay baaq nabadgelyo ilaahay ha noo hirgeliyo, annagu waa qaadanay, waana soo dhaweynaynaa. cid allaala ciddii oo ka qayb qaadanaysa baaqa nabadgelyadana waa soo dhaweynaynaa. dawladduna shacabka iyo deegaanka iyadaa wakiilka ah, sidii ay u sii wadayso iyo meeshii ay ka dhigayso iyo hawshii baaqi nabadgelyo annagu waa qaadanay. mas-uuliyaddiina iyagaanu dib ugu celinay. waxaa noogu yimid wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Puntland iyo guddoomiyihii degmada Jariiban. dhammaan wasiirka iyo guddoomiyaha culummada bulshada weynta meesha iskugu timi waa salaamaya salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. munaasabadda intaan ay iskugu timid waa munaasabad nabadgelyo wada tashi saabsan tahay, waa baaq nabadgelyo, waa xal nabadeed beelihii meeshaan ku dagaalay walaalaha ahaa sidaan dhiig dambe u dhicin, sidii la isugu imaan lahaa, sidii loo joojin lahaa dhacdadii iyo wixii la mid ah. saasaana wasiirkuna uga yimid. annagoo hadda degmooyinka joognayna ku shaqaynaynay nabadgelyadaas. ilaahay idankii waxaan jecel lahay baaqaas inuu hirgalo, dabeetana u gudbo gobolka Puntland, Galmudug, Soomaali weyn inta ku qushuuqul leh. waxaan rajaynaynaa meesha inay goob nabadeed noqoto. waxaan rajaynaynaa in la isaf garto. waxaan rajaynaynaa inaan xabadi dhicin. wasiir Dhabancad ayaa sheegay in aysan jiri doonin cid saddexaad oo Galmudug iyo Puntland soo dhex gasho, iyadoo ula jeedo dawladda federaalka ee Soomaaliya. in nabadda la xoojiyo, in gobolkan muddo hadda 2 sano iyo bar ah waxaa ka socday dadaal aad u badan oo nabadda lagu adkaynayo, oo ay qayb ka yihiin labada dawladood ee Galmudug iyo Puntland, oo ay hormood ka yihiin isimada iyo waxgaradka iyo cuqaasha gobolku. arrintaas waxaan rabnaa inay xoogaysato. arrinta halkan ka dhacdayna waxaan rabnaa in arrintaas lagu soo dabaalo. run ahaantii waxaan aad ugu mahad celinayaa saraakiisha Galmudug iyo Puntland iyo odayaasha iyo waxgaradka ka kala tirsan labada maamul ee maalmahan dambe ka shaqaynayay in arrintaas lagu soo dabaalo xabajoojin, in arrintaas maxaa la yidhaahdaa nabad lagu soo dabaalo. labada maamul ee Galmudug iyo Puntland, labada madaxweyne, wasiirada iyo mas-uuliyiinta kala duwan intaba si joogta ayaa waxaan uga shaqaynaynaa arrintaas in nabad ay ku dhammaato haddii la ahaydmo. shaqaduna way socotaa. shaqadaasna waxaa la rabaa inaynu sidaas
uga wada shaqayna haddii lahaydmo dhanka kale walaalahaya oo dariska ah waxaan u diraynaa baaqaas inay haddii lahaydmo nala qaataan sidii shaqadu u socoteen haddii lahaydmo loo xoojiyo labada maamulna si dhow ayay arrintaas uga wada shaqayn doonaan haddii la arki jiray galmudug iyo puntland oo siyaasado kale soo farageliyaan oo ayaga laga dhex shaqeeyo hadda ma jiraysa taas dadka ehelka ay walaalaha isku dhacayna waxaanu ka shaqaynaynaa in nabad arrintooda ku dhammaato labada maamulla ay noqdaan laba maamul oo darisa oo walaala ah oo nabad ku wada nool haddii lahaydmo wax faragelin oo dhexda timaadana haddii lahaydmo ma aqbali doono maleeshiyaad ka dagaalamay oo ka soo kala jeeda maamulka galmudug iyo puntland ayaa dagaalkooda waxaa ku geeriyooday in ka badan 30 ruux halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen warda carab warday warbaahinta daljir boosaaso